أراس مقات نكا هرمو أركت متقان ما تليفون واسكن هذا اللي بيجي ماركين lama siin doorasho ay ku kala xulan karaan qofka ay xilo u noqonayaan taasi waa maragba doonto haddana mid kasta oo ka mid ah gabdhahan waxa ay maqashay codkan in loogu sheegay inay u dhixi doonto waa dhaqan maafiyanimo ah una eg jiliinada laga sameeyo horjoogayaasha daraag dealerska filimadaasi silaaca ayaa lagu arkaa tacdiibinta iyo ka ganacsiga haweenka aad u yar gu ahaan iyo qolfoof ahaan caqliga saliimka ah ma tilmaamaya xal u helidda askarta baahiyahooda jinsiga ah laakiin madaxweyntooda jabhadaha ee ku go'doonsan dagaalada kaymaha waa loo dusiyaa haweenka yeelkadeeda inaan loo ekaysiinin warin rabbi waa fasir u furan culimada diinta oo ay tahay inay si adag ugu sheegaan waalidiinta Soomaaliyeed ka bari ahaanshiyaha xadgudubyadan نونا محمد إبراهيم أنسان كل حسين نورتا عبد نور آدن فوسيا إساق نونو فاضمة محمد حسن إقرأ إبراهيم حسن سوبا عبد الله الشيخ محمد أيا لقى قبتي جولاي لحي تبان كيدي سنة كان بوستي جدا سوق بعاده لقرر بابور تحمول كاه وبحضة قبلة قارهان شبيلة دحية قلقدود دا أهان وحي لسيميهن قار حلقة تقليف كاه هالكا كوا كمدا يسن حتى قارن سنة 10 سنة maxkamadda hor fadhiyo 7 eedeysane 7duba waxay u doonaayeen oo soo dalbaday oo ilaa Buurhaka ilaa Kismaayo loo keenay in loo geeyo qawaariid looguna geeyo meeshii ay joogeen oo duurka ceeldheer ah waan guddoomiyay si wada jira waxaan ugu eedeynay maadaama isku wada mid yihiin guurkooda iyo naagahooda iyo shabaabka naftirkooda waxooda dhan ay isku wada mid yihiin waxaan ku soo wada eedeynay inay ka wada tirsan yihiin ururka al-shabaab sidoo kale in la soo doontay dawladda ka qariyeen waxaan ku haysan waa taas waxay ahayd shabaab baa soo doonto inay beedhaba intay imaadaan iska diiwaan galshaan in shabaab ay soo doontaa la ogaaday dhahan taas ma dhicin waa qodobka 14aad ee xeerka dagaalanka argixisada oo sheegayo waajibnimada in la sheego xog argixisa ama xubin argixisa awdiina ku qoy أيه ومالي بير فلتو أوديني وقوي شباب المرشقين لكن بدايتك على الشباب هو يا كقدر وايد كاجسال وقدر إيشك وين داري معي يلا يباي وين داري ها وده كاج مجلس حسن سياد عبد الرحمن عبها منو ليه مايا يا كقدر أديك أديرك محكوشة محكو ده ما يقدر لاكي داري هذا ياري أنا نبايا يدري هذا يا كودي يا أتكون ده أنت سو بحيس أنت نسعت يا أنا كهجاي أدي يا كهجاي أنا ببيدو كوي بيدو باورا كوريا مرة كوي مرة باكتاوي هتنا سوق بيت كوي لديري سوق بيت لي كوي كده بتسعت ديرو dad kan oo gabdhaha kula socda yaa istaqaanin intaas ka soo raacdeen maya baawar kale ku kulmay qof oo kuwada ma jiro oo suuq bacad yaa ku geey yaa ku maya bajaaj leeraytan suuq bacad leh koy baawar ka mid deenaani qowdi shabaab bay dhawi ka imaan shabaab ninkay la shabaab adeerka ay tar seemadan xariirka la soo biday oo shabaabka nagatay oo lan shabaab lakin ka dare ay waalidka ilaa idare ma waalidka inta rooga qaabkeen ka inka dareen meel sharaxad ku bi aawkay ki fool in dhal dham hay aawka dhimade hay adeerka ilaa idare adeerka inta roogi baadi meel la rugo ana leeri inta lanka idare magaaje محمد إبدلي الأرالله مويش هنوم كسايان مغاشي ياه إبدلي شيء متكرم الأرالله مويش مكساو أنا مقورسن كو لا مقور يعني لا تيجي درين بايدو جذال شيء بادية يا قيمة بايدو قيمة قبل هاي جروب على جوي والي صادنتي أبي يقدري يا كصدنت يا كصدنت نينك دتكيس مجلس عبد الله بايدو غاري كسورة مقدشة مالي أمر بعول كله كوراي سبعة لا أقولي أنت أسعد لير نين كان هرمو أركت متقان ما تليفون واسكن هذا اللي بيجي ماركين يا كوهجا يا كوعي حاجتك كلها سي
gabdhaha meeqa qof istaqaaneen soo raacdeen baydhabo baawarka leeka waad kulumni adin ninkii yaa kugu daray intee ka imaatay intee u socotay ninkaaga muxuu ka shaqeeyaa soo dhawow waalidka inka daray Kismaayo ka imaaday dheerin socdaay sugbaad kale inslaamay adiga meeqa sano jirtaa 14 sano aroos ma gaartay yaa kugu daray marka yaa adeerkay muxuu ku dhahay ninga kasiyay leerin baasay ninka ma taqaan adiga daarag maya leerin soo yahay say kusoo baxday intee kasoo baxday intee soo martay buur aroonsa koy buur xamara koy suubaad koy leerin saasa ka bay yaa ku dhuhay warkaas uso baarkaas ayaa koray maanta baarkaay leeba aan la hadalay buur ha ko aroonsa koy tuulido buur markii yaa ku soo doon adiga idis buur ma degataa ma ay weer deganta adiga meeqa sano jirtaa 15 waxaa noo sheegtay see lagugu daray yaa kugu daray adiga yaa nool waalidka yaa nool waalidkay daray ninka wankii daray baad leel erani magaciisa Cabdiraxmaan misla hadasheen maya mar misla hadal waalidka yaa nool aabbaha ma joogo mise adeerkaa waa aabahay shab oo hol dhagata baadiyo darafyada madashan ganacsiga ah ayaa kala jooga halkan waa kan ku xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Maxamed Cabdullaahi Khaliif iyo Abukaatib Xuseen Cariif Sheekh Cali mudane gudoomiye eedeysanayaasha dhammaan waa under age waa da'yar sida ka muuqata qiraaladooda 14 15 16 17 sano ay wada jiraan kulligooda waxay ka soo tageen deegaanadoodii oo ay u badan tahay baydhabo dhulkay soo mareen suuq bacaad boosteejada laga rara baabuurta ayaa lagu qabtay iyagoo u socda ceeldheer hay-adaha amniga ayaa arrintaasi ka hortagay ayagoo feejigan ay ku qabteen hay-adaha baarista ku soo wareejiyay hay-adaha cadaaladdan hadda la horkeenay maxkamadda mudane gudoomiye maxaa sababi kara marka gabdhahan under age-ka ah inay masaafo intaas leeg soo jaraan waxaa sabab mudan gudoomiye waalidkii iyaga dhalay ayaa wuxuu si qasab ah ugu daray rag ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo ceeldheer joogo intaas uguma ekeenne waxay ku qasbeen inay goobaha ay joogaan ugu tagaan waxaa la yaab leh mudan gudoomiye eedeysanada lixaad iqro waa 14 jir waalidka 14 jir ku daraya nin dila ah oo arxan daran oo duurkaas ku jiro oo kadibna baabuur inta u saara u tag dhahayo oo raba 507 kilomitir inuu jaro baydhabo ilaa iyo ceeldheer 507 kilomitir waa ayadoo la og yahay inay wadadu bahal ay ku jiraan oo khatartu ay leedahay qof dumar ah oo gabar ah ay qof kasta arki karto ayadoon wax muxrama la socon wax walaala la socon wadadaas lagu daayay mudane gudoomiye waalidkaas ma gara kara qalbiga uu leeyahay sababtoo ah waalidka by default wuxuu u yahay naxariis isaga laga soo gaaray bal cagsi ayuu noqday isaga bahalkii ku daayay maxaa yeelay waalidku isaga gaajooda si uu muxuu ahaa ilmihiisa ay u dhargaan isaga khatarta isku dhiga si ilmihiisa u noolaadaan hadda tii ma dhacday ma dhicin isagii waalidkii ayaaba ilmihii khatarta u dirayba oo nin shabaab ah oo dadka laaya oo argagixiye ah oo argagixisada ka tirsan u diray ninkaas dawladda dagaal kula jirto xabada 4 saac lagu ridaa duqeymaha socdo gabadha 14 jirka ayuu u diray mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa marka koowaad in waalidkaas tilaabo cad ay maxkamadda ka qaado sidoo kale waxaan codsanaynaa in eedeysanayaasha dhammaan lagu wareejiyo hay-adaha dhaqan celinta si rehabilitation loogu sameeyo maxaa yeelay waxaa la rabaa in laga badbaadiyo naftooda ninkay u socdeen oo shabaabka ah sidoo kale waxaa la rabaa in laga badbaadiyo waalidkii iyaga dhalay naftirkooda khatar bay ku yihiin maxkamaddu waa maasanta mudane gudoomiye gabdhaha mid baan xabsiga ugu tagay aan ku soo wareystay xabsigaan ugu tagay waana soo wareystay mudane gudoomiye sidaa aad maxkamadda horteedooda aad maxdarkaba ay ka sheegayaan iyo sida ii sheegeen horta waa is waafaqsan yihiin ilmo yar yar
oo ikhtiyaarkooda mid iyo laba markii laga reebo aan ikhtiyaarkooda aan waxba ku guursan wey ninka guursadan aysan aqoonin asbaabta kaliftana waalidiintooda waa la xiriiray sababta kaliftana waa weydiiyey mabadii waxay joogaan ilmuhu waxay ka yimaadeen deegaan shabaabku ka taliyo awood aan ku diid ilmaha yararka waxaan u soo dhiibnay aan faraha qaadnay awood aan ku diidno oo aan ugu diidno oo maya aan ku dhaanay ma yeeli karno laano annaga madaxna laga jarayaa biiraad marka duruufta baa nagu kaliftay yiraahdo inaan intaas nolol ka raadino kumana waaridkoodna kuma qanacsana hatta dhiibista la dhiibay waaridkood kuma qanacsana qanaaca sax ma jirto ayaguna eedba ma laho waa masaakiin oo ilmaha yararka weeye oo aan ikhtiyaar ba aan lahayn marka saasaan dambiba u jira sida waafaqsan qodobka 16 dambiba ma jiroba dambi ay galeen ilmahani ma jiraan asaalatan waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in horta marka koowaad xorriyadooda la siiyo dad ehel u ah oo magaalada jooga oo haynayana waa joogaan oo lagu wareejin karo mas'uuliyiin lagu wareejiyo waxba dawladda ku cuslayn mayno lagu cuslayn ehelkooda magaalada la jooga ilaahay waa soo badbaadiyay gacmihii amnigooda qabtana oo way mahadsan yihiin dad dabiinta oo ayaga qabta oo magaalada ku haya baa la helayaa waxaan maxkamadda ka codsanayaa xorriyadoodii in la siiyo damiinna loo dhiibo maxkamadda waa madsanta dhinacyada dacwadda ayaa garsoorka u daayay maareynta kiiskan ka yaabsaday waa kan gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo faraya hay-adaha ay qosayso go'aankan bacdama 7 gabdhood ee hortaagan maxkamadda ay isugu jiraan kuwa da ahaan aan qaangaarin iyo kuwa aan u bislaanin garasho ahaan isla markaana aysan ka helin waalidkood xanaaneyntii ku habbooneed oo ay nafahooda halis geliyeen waxay maxkamaddu amraysaa in dhammaan 7dooda lagu wareejiyo barnaamijka xanaanada iyo dhaqan celinta haweenka sidoo kale waxaa la farayaa hay-adaha amniga inay la socdaan xaaladahooda nololeed iyo tooda nabadgeliyo maxkamaddu saasay ku xiran tahay waa xoog iyo xeelad beeleen khawaarijta hubaal waxaa adkaan doonto marka argagixisada laga itaal roonaada kadib isku baadigoobidda shakhsiyaad hidda sidayaalkooda ay isleeyihiin laakiin aan loo haynin diiwaan sax ah cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho